بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan rabaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waalidiinta macallimiinta maamulayaasha dugsiyada kormeerayaasha dhammaan inaan halkan ka salaamo salaamu calaykum salaan kadib waxaan rabaa in aan sida ka wada warqabtaan waxaan ugu soo foodle furitaankii dugsiyada hoose dhexe iyo sare intaba sanad dugsiyeedka 2020-2021 sanad dugsiyeedkan wuxuu ka duwan yahay kuwii horay aan caadiyan arki jirnay marka la fiiriyo laba arrin ku soo zaa'iday muxuu ahaa nidaamka dugsiyada lagu furi jiray waxaa la socotaan cudurkan aafada covid-19 loo yaqaano muxuu ahaa adduunyada meel walba saameeyey annaguna aanan ka duwanayn in uu dalbaayo ku talagal gaara in muxuu ahaa sanad dugsiyeedka looga talagalo sanad dugsiyeedkan wasaaradda waxbarashada horay tilmaan uga bixisay nidaamka loola dhaqmi doono cudurkan marka aan furayno dugsiyadii dib loogu noqonayo waxaan ku talinay in maaskigii afka lagu daboolanayay arday walba iyo macallin walba iyo qof kastoo ka shaqeeya dugsiyada uu haysto marka dugsiyada la joogo si cudurka faafkiisa u yaraato alxamdulilah waddanka hadda cudurka siduu ahaa ma aha waa taasta nagu dhiirigelisay inaan iskuulaadka dib u furno cudurka aad iyo aad u hoos ugu dhacay Soomaaliya laakiin taa macnaheedu ma aha inuusan laba kaclayn karin waqti kasto marka in la taxadiro bahda waxbarashada horaan wada hadalnay ku talagalka ayaa sidaa ahaa marka in muxuu ahaa aan ku dadaalno in cudurkii uusan iskuulada dhinaciisa ka imaanin ayaa loo baahan yahay waxaan qaybin doonaa arday kasta iyo macallin kasta iyo qof kastoo ka shaqeeyo iskoolaadka inaan siino baalka afka lagu daboolanayo oo iyadu kaasoo oo aan ahayn kuwa intii hal mar la isticmaalo hore loo tuuraayo noqon doono markuu ardaygu dhowr maalin haystaba inuu gurigiisa intuu ayar ku dhaqdo mar labaadna isticmaal kara iyo mar saddexaad iyo mar walbaba haddii ay yiraahdo sanadku markuu kala bar joogana mar labaad ayaa ku talagal ku yahay inaan qaybino macallimiintu waxay heli doonaan qalab zaa'ida oo markii dursiga bixinayo si afkii iyo codkii uu u bedelnaanin asoo afkiisa u furan yahay wajigiisa iyo afkiisu ay dadnaan doonaan ardayguna uu arki doono furriyaha macallinka say u nuuxsanayaan waxaa kaloo ku dadaali doonaa in caafimaadka muxuu ahaa gacnaha weelasha lagu dhaqalaha iyo iskuul walba aan suuro gelina inuu yaalo laakiin waxa la jiro waxa idinkana leedii ka baahan yahay haddaad tihiin waaridkii iyo ardadii iyo macallinkii waxa leedii ka baahan yahay marka u horeyso inaad wacyigiinu u baraarugsan yahay oo ku talagalku uu yahay in si wada jira waddanka cudurkan loola diriro waxaa kale oo aad muhiim ah oo leedii ka baahan yahay waxaan la yiraahdaa social distancing in aan la dhoobanin oo aan la iskor fuulin oo classeska la kala dejiyo meelaha lagu cayaaro ay kala dejisan tahay mar walbaba iyo goor walbaba marka la joogo iskuulka maamulka iyo macallimiinta iyo guddiyada waaridada ay madaxa ku hayaan inaan la dirsnahay cudur faafa oo khatara oo dhib keeni karo waxaan rajaynayaa in taas sida aan wax badan ba iskaga kaashanay inaan tanna iskaga kaashan doono sanadkan waxaa kale uu sanadaha uga duwan yahay hore waa sanad ilaahay mahadiisa ay ku noqotay in manhajkii uu soo ururay oo maanta aan haysano manhaj qaran oo dhammaystiran fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad oo aan ku wada dhaqmi doono buwaagtiisina ay meel walba waddanka diyaar ku yihiin oo laga heli karo wasaarad ahaanna aan kuwa badan qaybin doono haddii ilaa yiraahdo si bilaash ah
arrintaas marka waxaan rabnaa in aada loogu baraarugsanaado macallimiinta dugsiyada sare oo dhigto dhan waxaa laga diiwaan geliyay inay tababar oo u furmo lagu tababaraayo falsafada iyo qaymiga uu leeyahay manhajka ay dhigi doonaan dugsiyada sare sida aan horey ugu soo tababarnay intii ka horreysay ayaa iyagana tababari doonaa macallimiin ilaa adigu 8 kun oo macallin ku dhow ayaa isdaba ooli doono oo mataqaanaa tababarkoodii hadda uu bilaabanayo waxaan rabnaa marka in arday iyo waarid iyo muxuu ahaa maamulada iskoolaadka iyo macallimiinta intaba ay ku baraarugsanaadaan in dhaqangelinta manhajka dugsiyada sare ee qaranka uu taabo qaado manhajka hore u shaqeynayay muxuu muqarrarkiisa laakiin waxa hadda taabo qaadaya waxa weeye buugaagtii laga daalacanayo oo hadda diyaar noqotay oo soo dhamaystirantay waxaan u rajaynayaa arday kasto iyo waarid kasto iyo macallin kasto guul sanad dugsiyeedka hadda fooda aan gelinayn waxaanan ilaahay ka baryayaa kuwii wadankooda iyo dalkooda anfacay inay noqotaan aad iyo aad mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq